ujeedada ugu farada badan dadku intooda badan ma garanayaan sababta ay waxa u sameynayaan maadaama ay ku dayasho ama ay tahay xiiso markii ay dhexda marayso xanuunka qofka uu gaaro waxa suurtagal noqonaysa inuu dib uga haro haddii aadan garanaynin sababta aad waxa u bilaabayso haddaba number one thing soo raba inaan kuu sheego waxa weeye ha bilaabin maxaa ku haysta oo ku howlgaraynaya dib kuula haray oo ku ragaadinaya in badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed su'aalaha ugu badan oo ina weydiiyaan ama isweydiiyaan waxa kamid ah waxa aan bilaabay ma dhamayn karo wax ay haystana ma garan karo bal imagine qof wax bilaabay ama luqad Ingiriisi inuu bilaabay ama business bilaabay ama course iyo jaamacad bilaabay haddana aan garanaynin waxa uu u gabagabayn waayay ama waxa uu uga gaari waayay guushii oo laga yaabo week bill iyo wax la mid inuu dhexda uga haro waxaan maanta in la wadaagi doonaa saddex waxyaalood oo arintaas xal u ah inta aanan kula wadaagin haddii aad ka mid tahay dadkana daawada ee aan subscribe ka ahayn please subscribe ka saar si message-keenu uu dad badan u gaaro midda koowaad oo kaa caawinaysa arintaas haddii aad dareento in aadan dabar adeeg u lahayn in aad waxaad bilowdo oo tashuush iyo mugdi ka galayo waxaan kugula talinayaa number 1 inaad isweydiiso oo arinta ugu horeysa ah in aad dhahdo raadka ama sababta aan waxaan u bilaabaya maxay tahay sababta aan u bilaabay warqad iyo qalin inaad qaadato dhahdo waxaan u baahanahay sababta aan waxaan u bilaabay la markaan ka hadlayno live-ka oo aad weydiiso bulsho aad u fara badan maxaad u malaynaysaa inaad uga hartay wixii aad sameeynaysaa wuxuu ku leeyahay wallahi ma aqaan imagine hadaad dhakhtar u tagto oo aad dhahdo waan xanuunsanahay oo xagee laga hayaa ma aqaan ma ku daweyn karo haddii aad u timaado mentorship ama program aad u timaado dhahdo qofka ma aqaan qofka xal kuma heli karo adiga jirkaaga ku dhex jira laga rabaa inaad inta fariisto dhahdo ma caajis baa i reebay ma culays kala i reebay ma wahsi baa i reebay maxaa dadka iga reebay bal qalin iyo warqad qaado isweydii ma aqaan aqli ma aha waxba ma caawiso so number 1 waxaad u baahan tahay to identify why aad waxa aad sameynaysa aad uga hartay ujeedada ugu farada badan dadku intooda badan ma garanayaan sababta ay waxa u sameynayaan sidaas awgeed maadaama ay ku dayasho ama ay tahay xiiso markii ay dhexda marayso xanuunka qofka uu gaaro waxa suurtagal noqonaysa inuu dib uga haro haddii aadan garanaynin sababta aad waxa u bilaabayso haddaba number 1 thing soo raba inaan kuu sheego waxa weeye ha bilaabin maxaa yeelay sababtaad u bilaabaysaa laga rabaa inaad haysato oo hore ugu socoto number 2 in aad garan karto waxa aan bilaabayo challenge ba iga imaanay luqad Ingiriis baan baranayaa weight baan rabaa inaan lose gareeyo business baan rabaa inaan bilaabo jaamacad baan dhigan doonaa waxbaan bilaabayaa waxa aan bilaabayana ma ahan wax biyo oo la cabayo culays baa ka imaan doona waxaan u baahanahay caawin in aan helo ama waxaan u baahanahay support system in aan helo waxaan u baahanahay dad aan ila haraynin ee igu caawinaya ama igu helbi gareynaya inaan buurta koro oo aan kor u kaco inta badan dadka ku yaqaanay ma garan karaan garaadkaaga iyo qiimaha aad leedahay waxaad u baahan tahay inaad is xasuusiso oo aad dhahdo yaan u baahanahay inuu noqdo support dadka kuugu dhow ayagoo aysan xumaan ka ahayn waxa suurtagal waa inay u arkaan inay xanuun kugu tahay oo aysan kugu daawan karin buurta iyo dalcadda aad korayso laakiin haddaadan xanuunsanin oo aadan dareemin xanaaq iyo nerve iyo challenge aad dareemin noloshaadu isbedel ma sameynayso so waxaad u baahan tahay support system oo kugu caawinayo oo ku dhahaya dhiigga iyo cayga iyo cabsida iyo cabaadka iska ilaaliya rin raga haddaad tahay ama gabar fiican aad tahay goolka aad rabto inaad faranto ama buurta aad rabto inaad korto isku day dad support noocaas oo kale maanta number 3 tan kalood u baahan tahay in aadan overwhelming isku samaynin oo aadan isbuujinin ama buuq aadan isku abuurin aad dhihi karto waxa aan u socdaa waa gunta geedka waxaan u socdaa waa inaan halkaas gaaro laakiin waxa lagu gaaraa tilaabooyin iyo steps kala horeeya waxaan qaadi doonaa the next step kama walwali doono ama uma arko stepska aad u dheer last time oo aan ka maarta arintan ka hadlay waxaan iri qofku waa inuu saddex waxyaalood garan karo saddex waxyaalood waa inaad garan karto waa inaad garanayso meesha aad taagan tahay
waa inay kuu muuqataa qalbi ahaan indhaha kama arki kartid kunka tilaaba iyo meesha aad rabto inaad tagto laakiin waa inaad mar walba plan garaysaa ood qorshaysaa tilaabada kale oo aad qaadi doonto ha ka walwalin yeysan ku cabsi gelinin sanadka dambe iyo bisha dambe iyo biilasha iyo noloshaas kale waxaasoo dhan hawshaada ma waman yatawakkal cala allahi fa huwa xasbu waxa aad u socota haddii ay tahay wax wanaagsan oo ilaahay raalli ka yahay ilaahay baad u tala saaranaysaa beri iyo beri dambe iyo waxa dhici doona laakiin steepka dambe oo aad qaadayso ku xiga waxaad make sure ku samaynaysaa in aad si la hubo u istaagto dadka buuraha koraya ugu dhaadheer buurta Mount Everest leeyahay buuraha ugu dhaadheer dadka koraya kama walwalaan buurta korkeeda waxay ka walwalaan xariga ay haystaan ush lugta meeshay dhigayaan ku xiga waa muhiim lugta meeshay dhigayaan because lugtaas oo haday u fakato noloshooda waa u dhamaatay waxaad u baahan tahay adiga laftigaaga goolkaaga waa the same berri goolka laga raba hadaadan lugta dhulka dhiginin ma gaaraysid haddaba isweydii adigoo qof weyna adigoo qiimaysan adigoo qiimo leh adigoo dadnimo leh adigoo ilaahay ku abuuray suurtagal ma tahay inaad nagu dhaxdo ama aad qof ku dhaxdo laga yaabo raba inuu ku caawiyo wallahi ma aqaan anoo iska fadhiyaan arkaa waxaan qabanaya ma garanayo waa iska wareeray waa wareersanahay waxba saasa that's not suurtagal maaha waxaysan suurtagal u ahayn yaa jirkaaga kaa badiya yaa qalbigaaga kaa badiya yaa kaa badiya waanaad ogsoon tahay number 1 waxa aan bilaabaya maxaan u bilaabaya number 2 ma leeyahay support system ama dad i caawinaya ma leeyahay number 3 ma garan karaa stepka ku xiga ama tilaabada ku xiga oo aan qaadayo anigoon ka walwalaynin meesha aan ku dhamaanayo gadaashooda ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa ta'ala in uu shaydaanka iyo sharka iyo dhibaatada ugu badan ee buuqa dad badan haysta ee maskaxda ay qofka uu ka dhaqaaqay ilaahay in ilaahay bulshadeena iyo araga dhan naga qaado oo uu qofka u sahlanaato asoo ilaahay tala saartay goolka uu leeyahay inuu gaaro because that is waxaad u baahan tahay inaad tala saar ilaahay u saarato oo aad ku taragasho inaad tilaabadaas qaado insha Allah